Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale Somali Arsenal Fans TV. Heshiiskii Arsenal ay ku sugaysay Rafinha waa uu dhintay. Rafinha wuxuu ku biiray Barcelona weliba lacag dhan 55 milyan, taasoo ka yar lacagtii ay Chelsea u soo bandhigtay Leeds ee ahayd 65 milyan. Laakiin Rafinha mar walba wuxuu rabay inuu ku biiro Barcelona, inkastoo Leeds lacagtii ay Chelsea u soo bandhigtay ka yar ay ku dirtay, balse ciyaaryahanka ayaa siduu rabay ay u noqotay. Arsenal waa ay dadaashay maadaama ay rabeen inay saxiixaan Rafinha, inkastoo aysan u malaynaynin Arsenal in Barcelona ay ka bixin doonto lacag intaa dhan ciyaaryahanka oo ay islahaayeen ka faa'iideysta Barcelona qarash yaridooda. Rafinha isna uusan rabin inuu ku biiro Chelsea, haddana Barcelona ayaa ka soo baxday meel aan la filanaynin oo soo afjartay heshiiskii Rafinha. Laakiin yay Arsenal u leexan doontaa haddii Rafinha suuqa uu ka baxay? Arteta iyo Edu ayaa la sheegay in ay ka heleen Lucas Paqueta, ayna u arkaan inuu bedeli karo Rafinha maadaama weli uu yar yahay, qaab ciyaareedkiisuna uu ku soo baxayo sida Arteta uu rabo. Waxaa la sheegay in ciyaaryahanka uu ka ciyaari karo number 10, labada gees iyo weliba second strike. Hase ahaatee, aad ay u adkaanaysaa inay Arsenal ku guuleystaan heshiiskan, waayo Lyon waxay ku doonaysaa ugu yaraan 68 milyan. Una malayn maayo in Arsenal ay ka bixinayso lacagta, balse adiga sideed u aragtaa? Bal ka waran isaguna Milinkovic-Savic. Wararka ka imaanaya Italy ayaa waxay sheegayaan in Arsenal ay rabaan inay Lazio u bandhigaan 50 milyan si ay u dhammaystiraan saxiixa Milinkovic-Savic. Waa ciyaaryahan khadka dhexe ah, box to box aad u fiican, 11 gool iyo 11 caawin ayuu sameeyay season-kii u dambeeyay. Wow! Goorma Arsenal ugu dambeysay midfielder sidaas samayn kara? Balse Lazio ayaa doonaysa lacag dhan 70 milyan. Waa lacag aad u badan. Sanadii la soo dhaafay waxaa la sheegay inay ku rabeen 100 milyan, taasoo ku cadaynaysa inuu yahay ciyaaryahan aad u fiican, waana khadkooda dhexe ninka ugu wanaagsan laguna tashto mar walbana lagu soo bilaabo. Laakiin haddii ay Arsenal saxiixdo Milinkovic-Savic, yaa la diri doonaa, waayo waxaa jooga Xhaka iyo Partey iyo Elneny oo wada khadka dhexe ah, hal meelna ay ka wada ciyaarayaan. Soo ma noqonaysa in ay Arsenal gadaan Xhaka ama ciyaaryahan kale? Iyaduna waynu eegi doonaa halka ay ku dhammaato. Sidoo kale waxaa suuqa ka bixi la wararka ku saabsan in Juve ay rabaan inay saxiixaan Gabriel Magalhaes. Wararkaasoo ka soo baxaya Italy ayaa waxay sheegayaan in Juventus ay Arsenal u soo bandhigtay lacag gaaraysa 25 milyan iyo Adrien Rabiot iyo weliba Afamelo oo ay loan ku siinayaan xilli ciyaareedka soo socda. Balse aniga haddaan ahaan lahaa Arsenal, Gabriel Magalhaes kuma bedesheen ciyaaryahanada Juve dhammaantood, waayo waa difaac aad u adag, gool kuu dhalin hayo, dhowr mar Arsenal ka fujiyay. Hase ahaatee, asagana waan arki doonaa halka uu ku dambeeyo, inkastoo Arsenal haatan aan laga haynin war sheegaya in Gabriel suuqa yaalo, taasoo u ah war farxad leh taageerayaasha Arsenal. Sidoo kale Arsenal ayaa raadinaysa ciyaaryahankan, magaciisu yahay Amadou Onana. Belgium ayuu u dhashay, weli 20 sano jir, wuxuuna u dheelaa Lille, waana difaac khadka dhexe ah. West Ham ayaa lacag bandhigtay inkastoo lagu soo celiyay. Hase ahaatee, Arsenal ayaa la sheegay in ay ka heleen ciyaaryahankan. Da'diisu way yar tahay, balse marka aad fiiriso size-kiisa waxaad isleedahay Premier League ayaa loogu talagalay jirweyninkiisa. Waana player aad ugu fiican khadka dhexe, inkastoo aana arkin qaab ciyaareedkiisa. Bal haddana aan fiirino ciyaaryahanada bixi doono. Fulham ayaa isku dayaysa inay saxiixdo Leno. Arsenal waxay ku rabtaa 11 milyan, Fulhamna intaa in ka yar ayay ku rabaan. Soo la yaab ma ahan, Leno oo German international ah
goolkiiba aad u fiican ah in ay Arsenal ku iibiso 11 milyan. Hal sano ayaa ooga dhiman heshiiska uu kula jiro Arsenal, balse 11 milyan Fooleno aad ayay u yartahay ayaan isleeyahay. Hase ahaatee, wadahadallada u dhexeeya Arsenal iyo Fulham ayaa weli socdaan, waxaana la rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in uu kusoo gabagaboobo heshiiskan. Sidoo kale, Fulham ayaa ku rabta Bellingham loan, iyadoo weliba ay la socoto option ah inay iibsan doonaan haddii uu anfaco. Arsenal ma diri doontaa oo loan ahaan ma ku diri doontaa, mise way iibin doonaan? Inkastoo taa suuragal aysan ahayn, waayo season-kii u dambeeyay wuxuu ka mid ahaa playaashii laga saxiixay kontraktiga. Waxaan jeclaan lahaa guys inaan idinka maqlo aragtidiina ku aadan Bellingham. Ogow, striker hadda waxaan haysanaa Gabriel iyo Eddie Nketiah. Hadduu midkood injury gala, striker kale oo bedelahaya ma lahan. Ma jeclaan lahayd inay Arsenal hayso Bellingham? Sideed u aragtaa? Sidoo kale, Conte ayaa suuqa yaalo. Chelsea way aqbalaysaa lacag dhan 16.5 milyan, mise waxaad jeclaan lahayd ciyaaryahanka da'da yar ee 18 sano jirka ah, aadkana u fiican, una ciyaaro Aston Villa? Hal sano ayaa ooga hartay kontraktiga uu kula jiro Aston Villa. Bayern Munich iyo Leeds ayaa sidoo kale raadinayaan ciyaaryahankan da'da yar. Asagana nagula wadaag fikrada aad ka qabto kommentiga. Waad ku mahadsan tahay haddii aad intaa ila soo gaartay. Bye bye, see you in the next.